السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. علماء hadday joogto waxay ahayd in iyagu tilmaamaan على كل إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحنوغو tilmaamaya ayada sheekhu akhrinayay يا رب ولي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون waxaa laydinku waajib yeelay soon sidii dadkii idinka idinku horreeyeyba loogu waajib yeelay lacalakum tattaquun ay kay tattaquu saa ilaahay subxaanahu watacaala uga cabsataan ama cabsida rabbi a u gaadhaan ramadaan fadaa'isheedu in badan baa maqasheen baan rajaynayaa waana bil kow ah misfaat ruuxiya waa bilu qofka muslimkii u sahay xidha inuu dembiga iska maydho waxaa inoogu dhib badan ee dunida inaga haystaa waa dunuubteenna aakhiriya adduunbana waxaa laynagu abaalmarinayaa inta badan waa dunuubteenna wixii aan rabbi inaga dhaafa mooyaane haddaynu heeriyadaa iska rogno waad xalay dhalaydee soomaalidu sheegaysay ka noqotay dunuubta waa waxa ugu weynaa alla loogu dhowaado هذا العلماء وحلوت لويدي تسبيح ده هي استغفارك كيف انه الرئيسين نبيدا اما كيف فضل بدن ورساو حولي ضدك ذنوب تكون بدن طحينه استغفارك والروم بيولي ضدك الذنوب تكون يرتحينه تسبيحاتك والروم وهي waxay kama adigoo uska galada la isma cadriyo buu tilmaamaya inaad ismaydho oo marka hore uskaga iska rogtaabaa roon nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa ramadaan in ilaahay ku dhaafo ramadaan ilaa ramadaan wixii u dhexeeyay in ramadaanta lagu dhaafo waxaa kaloo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam habeen kastoo ramadaan soo galayso in dadka badh laga xoreeyo naarta oo ilaahay subxaanahu watacaala dembigooda dhaafo waxaa kaloo nabigu uu tilmaamay qofka sooma in ilaahay dembigiisa dhaafayo waxaa kaloo nabigu tilmaamay qofka iimaanan waxtisaabana tukada habeenadaasi in dembigiisa la dhaafayo waxaa kaloo lasoo tilmaamay qofka habeenka laylatulqadriga si gaar ah iimaanan waxtisaaban u kaca in dembigiisa la dhaafayo idan ramadaan oo dhami ama soonkeeda ha noqoto ama qiyaamuleelkeeda ha noqdo iyo salaadaha habeenkii la tukanayo ama habeenka laylatulqadriga ku jira ha noqdo dhammaanteed inay tahay wax qofka muslimka ilaahay subxaanahu watacaala dembiga uu kaga dhaafo dunuubtaynu galla waa tiro badan tahay cibaadaadkaynu la nimaadnaana kuma wada filla oo nabigu wuxuu tilmaamayaa salaad ilaa salaad baa dembiga lagu dhaafaa haddana wuxuu nabigu tilmaamay jimce ilaa jimce baa dembiga lagu dhaafaa haddana wuxuu nabigu tilmaamay bil ilaa bil baa dembiga lagu dhaafaa waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo salaad ilaa salaad haddii dembiga la dhaafay jimcuhu muxuu maydhayaa ilaa intaasoo salaadood baad soo tukatay ama jimco walba haddii dembiga la dhaafayo muxuu maydhayaa ramadaanta marka la gaadho cibaadaadku aynu samaynaa ma aha sidii la rabay nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam mid baa salaad tukada oo salaadiisa aanan helaynin ilaa cushuruha ama thumunuha ama tusucuha iyo wax la mid ah idan waxoogaaga jajabka marka la isugu kaa beeriyo kolba in baa lagaa dhaafayaa hadday wada dhaafi kari weydo ta kale jajabkeeda lagugu sii daraya in kalaa lagaa dhaafi hadday ilaa jimcaha gaadhi weydo waa la isugu kaa beerin idan waxaynu samaynoo dhammi perfect ma wadaha halkii qimada ma gaadhsiisna laakiin waa waxyaabo qofka muslimka hadduu ku dadaalo dhammaantood ilaahay dembigooda ku dhaafayo dee maantana waaba ogtihiinoo qoladan caafimaadka ka warrantay iyo waxa kane dee asawm ilmutaqatic sooma maqashaan in badan intermittent fastingka sheegaan soonta googo-an iyo caafimaadka si wax uga taro bale ilaa xad bay hadda tilmaamayaan waxaan filayaa nobel pricekii 2016 kii la qaatay Oshua odaygii Japanese-ka ahaa wuxuu ku qaatay soon bay ahayd
وها قفك بني آدم كأي دفاعي سيو صار نوليسيو شركيس سيو عصبونيسيسيو وحبضا إذا وحلنا الدنيا آخرة بوت كفايديسه الدون عافمات بات كهليسه توقو بدن لسالة الماميو آخرنا الدنبي قال غضافة وأنا كان نبي كنت المامي حديث قدسي إنه إلهي لي هي أعماشك لو دم بني آدم كاس كلا صون كمو يعني صون كسعر على با إلهي لي وأنا أجزى به محل لو يجي بيع علماء ضيدها صون كإلهي باله كوا كلا با إلهي باله صلاة با إلهي درتي واحد هذا وحي كبح سنت قاعدة ديها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 هذه نصوص تشكتي أي يدو كبح سنت بيد هذا وهذه وحيابا كانت تبلغ بالقوة بالمرينية إلا تضوى بغلو شير لقاريو يد واحد عن قاعدة دا ويكبح سنتي أجر كذا إلهي وما قرنا سبحانه وتعالى إذا نحن لنا وقت إنه أبا هنين إنه ديار قرونه نك تاجر كاهي وحود ديار قروبا موسم كا وحلقته صحيح كما كتاجر كاهي ده وقت يده وسيلة هي وحبدا بالغا قدنا يا أبو ألا بدن سوج من الاستايو كتلقلا qofka muslimka ahi waqtiyada dambiga xooga loo dhaafo inuu diyaar garoobaaba ku habboon acmaasha kale oo dhan uu iska fudaydiyo si uu camalkaasi u dhammaystiran karo marka bisha ramadaan inaynu ku talagalno oo intaanay soo gelinaynin u diyaar garowno u diyaar garowgeennuna inaanu noqon hurdo badan iyo fasax badan inuu noqdo juhdi badan iyo camal badan oo diineed inaynu la nimaadno dadka badhba ramadaanta waxay ugu diyaar garoobaan bariiska reerku cuni jiray bariiska tiro badan hilibkii la cuni jiray hilibka tiro badan kaama diyaar garowga ka warramaya ramadaan ba waxa loo soomayay in la gaajoodo in cunada la sii badsado looma xoolo guranaynin waxaan rabnaa inaynu diyaar garowno cibaado badan inaad samayso bisha inaad cibaadaysato oo isku daydo inaad ka bixi karto bisha iyadoo ilaahay dambigaaga dhaafay وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين